السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سومالية دمانتين سلام كديب مرة بدن waxaad maqashaan anigoo halkaan idinka soo gudbinaya sheekada waxa ay soo dirtay gabar Soomaaliyeed dad badan waxaan arkay iyagoo dhahaya ma gabdhaha uun bad sheekooyinkooda soo qaadata aaway kuwii wiilasha iyo waxyaabo la mid ah xaqiiqatan sheekooyinka loo soo diro waxa ugu badan waa gabdho boqolkiiba 98 waxaan dhihi karaa gabdhaha ayaa ay soo diro sheekooyinka anigana wixii markaas la soo diro ayaan soo gudbinaya oo aan idin la wadaagaya taas anigu wax dambiya marka koobaad kuma lihi marka labaadna waxaan isleeyahay wiilashu mala way ka wax qaris badan yihiin gabdhaha oo si dabiici ah marka la soo barbar dhigo wiilal iyo gabdho gabdhaha ayaa hadal badan marka waxaan waliba jeclaan lahaa sheekooyinka aan soo gudbiyo ee gabdhaha ku saabsan wiilashii ay kala dhaxaysay sheekadaasina iyaguna dhinacooda iiga soo diran ayaan aad u jeclaan lahaa xaqiiqatan waayo hal dhinac mar walba markaan anigu sheekadeeda akhrinayo xogaa waxaan dareemayaa inay wax iga maqan yihiin marka waan jeclaan lahaa xaqiiqatan hal mar inaan xitaa helo sheeko aan soo gudbiyay oo gabadh ii soo dirtay wiilkii ay sheekadaasi kala dhaxaysay inuu mar ii soo diro isaguna waxa xaqiiqada jirta oo dadweynaha la wadaago aad baad u mahadsantihiin sheekadanina sidii caadiga ahayd waa sheeko gabdheed waxayna ku bilaabanaysaa sida tan waan ku salaamay Abaayo Suleekho runtii qosooyinka ay dadku kula wadaagaan waa dhageystaa waana mid ay ugu dhiirigelisay inaan anna kula wadaago midayda in badan waan ka helay sida quruxda badan aad u soo gudbiso Abaayo hadii aan bilaabo sanadii la soo dhaafay 2013 ayaa habeen gabdho aan saaxiibanahay waxay aadayeen xaflad anna waxay igu qasbeen inaan raaco sidii ayaan ku aadnay habeenkaas wiil aan deris ahayn ayaan meesha ku arkay waxaan ka codsanay inuusan naga tegin oo uu nasi wado isna waayahay ayuu dhahay kadib xoogaa markii aan joognay ayuu igu yiri waan baxayaa marka wiil aan saaxiibanahay ayaa idin soo wadi doona sidii ayuu aniga iigu geeyay wiilkii barasho kadib wuxuu u sheegay inuu na soo kaxeeyo waxa dhacday markii ay dhamaatay xafladii inaan helnay gabdho u socda xaafada oo gaari wata markii aan banaanka u soo baxnay ayaa waxaan la kulmay wiilkii wuxuu ii sheegay inuu mashquulay anna markaas maadaama aan helay dad aan sii raacno waan iska fasaxay wiilkii wuxuu iga codsaday inaan siiyo lambarkayga si uu ii soo waco inaan nabad ku tagnay anigana waan siiyay habeenkii markii aan guriga imid ayuu ii soo wacay waanu sheegay inaan xaafada joogo wiilkii sidii ayaan si walaaltinimo ah ku wada hadli jirnay habeen ayuu ii soo wacay saacado badan ayaan wada hadlaynay annaga oo kaftamayna ayaa wuxuu igu yiri ka waran hadii aan kulano waqtigan runtii aniga la yaab ayay igu noqotay maadaama aan horay ugu sheegay xaafada aan deganaa isna uu garanayay waxa dhacday isaga oo ila hadlaya anna ay ila tahay kaftan inuu igu yiri gurigaaga ayaan hortaaganahay waanu qaadan waayay markii aan u soo baxay ayaan arkay mise waaba isagii runtii habeenkaas waxay ila noqotay dad muddo badan aqoon isku lahaa wiilkii waxaanu walaaltinimo ku wada hadalnaba waxay isku bedeshay xiriir ma aqaan xiriirkeenu sidoo ku bilowday waxaan ogaaday inaan jeclaaday oo aanan marna hadalkiisa ka maarmin waxaan arkay aniga oo wacaya in badan mar walba aniga ka codsanaya inaan kulano isna sidoo kale wuu i jeclaa waxaan ahayn laba qof oo is aaminay muddo ayaan sidaa isku ahayn laakiin hal dabeecad ayuu lahaa oo aanan anna jeclaysan taas oo ah inuusan markasta isoo wicin anna markii aan waco inta badan uu i oran jiray mashquul ayaan ahay runtii sababahaas awgood ayaan isugu dhici jirnay mararka qaarna dhici jirtay inaan kala aamusno maalmo balse anigu mar walba waan u dulqaadan jiray waayo nafsadayda ayaa in badan jeclayd waxba yaanan Abaayo hadalka kugu dheerayn run ahaantii aniga isagu wehel ayuu ii ahaa waayo meesha aan joogo keligay ayaa ku noolaa wax walba ayuu ii ahaa aragiisu wehel iyo farxad ayuu ii ahaa habeen ayaa waxa dhacday inuu ii yimid wuxuu igu yiri inaan meel safar u galo ayaan rabaa wax yar ayaan ka soo qabsan waana ka soo noqon
runtii habeenkaas in badan ayay murugo igu abuurtay safarka uu ii sheegay balse waxaan ka codsaday inuu iska daayo waxa dhacday isaga adeerkiis inuu ku yiraahdo gabar ay ilmaadeer yihiin inay isguursadaan kadibna ay soo kaxayso runtii markii uu ii sheegay habeenkaas aad ayaan uga calool xumaaday isna sidoo kale balse wuxuu ahaa qof go'aan adag wuuna ka soo horjeestay arrintaas waxaa dhacday inuu mar labaad idhaho waan tegi oo safar ayaan geli waana soo noqon aniguna waan fasaxay habeenkii uu tegayay waan wada joognay intuusan bixin ka hor waxaan u sheegay inuu dhaqso iigu soo noqdo runtii habeenkaas indhahaygu ilin badan way qubeen waayo noloshayda ayaa iga tegayay marna niyadda ma aanan gashan inaan daqiiqad kala fogaano waa uu nabad tegay waana wada hadli jirnay markastana waan weydiin jiray waqtiga uu soo noqonayo waxa dhacday inaan waayo hadalkiisa maalmo dhan waan raadiyay saaxiibadii ayaan weydiiyay ayaguna aniga ayayba i weydiinayaan sidii ayaan muddo dhan 10 cisho kula hadalkiisa runtii wax kasta waan ku fakaray aniga oo markasta ku rajo weyn inuu isoo wacayo maalintay noqotoba habeenada kamid ah ayaa waxa soo dhacay mobilkayga mise waa lambar wadan kale ah oo aanan garanayn waan qabtay mise waaba isagii aad ayaan ugu farxay misana aad ayaan u ilmeeyay waxaan weydiiyay maxaad ii soo wici weyday wuxuu ii sheegay inuu safar dheer galay misana hadda uusan soo noqon karin siina socdo aniga yaab ayay ila noqotay aaway ayaan dhahay ballantii waan ka xumaaday markuu intaasi dhahay anna waan ku damiyay taleefankii wuu igu soo celceliyay in badan kama aanan qaban kadib waan la hadlay wuxuu ii sheegay in safar dheer uu aadayo aan ugu duceeyo inuu nabad ku tago markastana uusan ilaawi doonin xiriirkeena jacayl sidaa ayaan anna ku sii fasaxay runtii aniga iyo magaaladii aan joogay waan iska hornimid waxaan sameeyo ayaan garan waayay waayo iftiinkii dhamaa ayaa mugdi iigu bedelmay waxaan anna go'aansaday inaan aado meesha uu aadayo qofkaygii oo ijecel ishayduna qaban karin qoraalkuma dogsadee qurbaha iiga dhoofiyo qamuuyaadu waa dartaa qaraarkuna waa halkaa inaan anna soo qabto qaraarkuna waa halkaa inaan anna soo qabto qormeeye rugtaan habboon nolosha kula qaybsan laa waan soo tegay waliba isaga dartiis ayaan anna safar u soo galay waan u sheegay inaan soo baxayo wuuna ka xumaaday in badan wuuna iga codsaday inaan joogo laakiin kama aanan yeelin intii aan safarka ku jiray isaga ayaan mar waliba ku hami weynaa inaan la kulmayo mar walba waan faraxsanaa waayo waxa kaliya ee aan ku haminayo ayaan islahaa guul ayaad ka gaari habeenkii waan qaruwaa dhandooda maalintii inaga oo qoysaho isqaabilay maan arkaa naftan ku qabuujiyaa intaan laba qaaradood midkeen baqar saaran yahay qamuuyaadu waa halkii qabyana way daadsan tahay waxaan ogaaday inuu nabad ku tagay alxamdulillah anigana intii aan safarka ahaa uu isoo wici jiray waqti walba xaaladaydana wuu la socday waxa dhacday inaan nabad ku tagay alxamdulillah qofkii iigu horeeyay ee aan waco hooyo ayay ahayd isna qofkii labaad ayuu ahaa aad ayuu ugu farxay meesha aan joogo laakiin ma ahan wadanka uu joogo balse isku qaarad ayaan joognaa waxa dhacday in ay arrin yar i qabsatay taas oo ah in familygayga ay dhaheen wadan kale ayaad soo aadi runtii arintayda cid og ma lahan iyo anigu qofkii aan intaas u soo maray waanu sheegay isaga arinta timid wuuna iga xumaaday maalmo ayaan wada hadlin wax walba qadar ayay ku socdaan waxa dhacday in la ii soo diro nin
si uu ii soo kaxeeyo. Runtii waxaan sameeyo waan garan waayay. Ma aanan u sheegin cidna qofkii aan halkan u soo maray, balse hadafkii aan lahaa ma aysan noqon ee waxaan soo raacay ninkii la ii soo diray. Waxaana habeenkii markii aan soo galay wadankan wacay wiilkii, waxaana u sheegay inaan hadda dalkaas joogo. Runtii marna muuse ku fikirin inaan gees marayo isaga, anna sidoo kale, balse wax walba qadar ayay ku socdaan. Waan u sheegay in faamilkayga qancintooda aan halkan u imid. Isna haye ayuu i dhahay maadaama aanan wax badan kala fogeyn. Sidii ayaan ku wada soconay, hal qaarad ayaan wada joognaa, balse laba wadan ayaan kala joognaa. Aniga weli aad ayaan u jeclahay, waayo waan ogahay inaan mid ku qaldanaa oo ah inaan ugu tago isagu meesha uu joogo, balse aanan samayn. Xiriirkeena wuxuu sii socdaba wuxuu iga codsaday inaan isguursano. Aniguna waqti ayaan u qabtay. Waxaan ku yiri waqtigaas ayaan isguursanaynaye ii dulqaado inta ka horeysa. Ma aqaan sababta aan u iri arrintaas, laakiin kaliya waxaa niyadda igaga jirtay wadanka aan imid markaan la qabsado inaan isguursano oo aanan marna ku fududaan guur. Isna okay ayuu yiri. Wuxuu waqtigu socdaba waxaan ka dareemay isbedel weyn, taas oo ah inuusan soo wicin maalmadan, inuu qadka iska xiro, in isfahan daradeenu ay badato, inaan mar walba ku canaanto maxaadan ii soo wacaynin. Aniguna markii aan waco uu isna inta badan i dhaho mashquul ayaan ahay, wiilal ayaa ila jooga, waan kugu soo celin, isug iyo wixii la mid ah. Kolay abaayo aniga aad ayaan u jeclahay, mana ka maarmo wax yar inaan hadalkiisa waayo. Dhib ayay igu tahay markasta aan si degan ula hadlo. Wuxuu igu dhahaa aniga waxaas waa dabeecadayda ee xumaaniga ma aha. Runtii isla hadal iyo wareer ayaan galay. Maanta lama joogo, ma awoodo inaan la kulmo, kaliya waan dulqaataa ilaa xad. Waan u samraa, marmar naftayda ayaan ku canaantaa, waa adiga qaladkaaga, maxaad uga fogaatay oo aad u tagi weyday meesha uu joogay. Kolay qoraallo badan ayaan u diraa, asna jawaab kama soo bixiyo. Hadda waxaan go'aansaday inaan faraha ka qaado oo aan isku dayo inaan ilaawo, laakiin marna si fudud kuma ilaawi karo, waayo wado kale oo ii bannaan waan waayay. Asna waan iska cafiyay, waxba uma qabo. maantana nafqaybsigaano nagida ku raaxsha. maantana nafqaybsigaano nagida ku raaxsha. waxaan nolosha loo wada orda gurinagiya taagan. nasiimana ma yeeshaba ishqan iyo samaan hayde. naxlili iku daaye idaalida nool kurantee. balse kaliya waan jeclahay, marnaba naftayda kama maaranto. Ma aqaan waxaan sameeyo. Waxaan noqday qof fiiriyo online-kiisa, balse aanan hadda awoodin inaan waco. Waxaan isdhahaa muxuu kaaga aamusan yahay, sabab intuu qoraalkaaga arko misna uusan uga jawaabayn. Abaayo hal qalad oo kaliya ayaan lahaa, taasoo ah inaan isaga aanan aadin meesha uu joogay, balse aniga waan jeclahay, waayo dartiis ayaa naftayda halis u geliyay, laakiin maysan qornayn inaan kulanno. Abaayo qisadayda intaas ayay ku eg tahay. Waana ku faraxsanahay inaan inila wadaagay, waana rajaynayaa inaad talo iga siin doontaan. aad baan idin salaamayaa. Assalaamu calaykum. waa tahay sheekadii waan wada dhageysanay. Soomaaliya iminkana tala ayaa laynooga fadhiyaa. talo waa rabbi, balse waxaa jirta hal cilad oo yacni aan rabo inaan si guud u sheego, balse sheekadan laftirkeeda qayb ka ah. waxaa jirta wax la yiraahdo kalsooni darro ama aaminaad la'aan oo dadka Soomaalida aad ugu badan ee dhalinyarada ah ee xiriir ka dhaxeeyo. waxaa jirta labada qof markaysan isku kalsoonayn inuu qof walba dhinaciisa wax isaga sawirto. marka halkan waxaa iiga muuqata in
maadaama gabadhu markii ay wiilka ka daba tagtay ay tagtay wadan aan ahayn wadankii uu joogay misana markii uu guurka ka dalbaday ay tiri wadanka waan ku cusbayna wax bartana waan rabaa taasi inay wiilka u sawirtay ama uu u arkay inaysan soo jeedin oo aysan rabin marka wax runtii aad iyo aad looga fiican yahay in labada qof aamini waayaan oo ay goonidiisa mid waliba uu xisaga sawirto waxa fiican labada qof inay isku niyad samaadaan oo qofba uu qofka kala rumaysto waxa uu leeyahay balse uusan wax iska qiyaasanin gabadhaas waxaan leeyahay runtii qofka bilaadanka wuu qaldamaa walow ay ahayd duruuf oo uusan meesha qalad imanin oo in lagu yiraahdo wadankaas ima uu qofkaas lagu soo diray wadankaas uu ku keenaya ima markii lagu yiri familkaaga ama qoyskaaga hadalkiisa inaad raacdaad ku qasbanayd haddana inaad wiilkii qanciso ayaa la rabay oo aad si fiican u faasiiso wax uga dhaadhiciso isagana waxaa la rabay inuusan yacni waxyaabaha qadartu keentay ee duruuftu keentay inuusan kugu qabanin haddana waxaan leeyahay laba qof oo isjecel oo gabadha intaas oo dhan ay ku soo martay oo adiguna aad jeceshahay sida ay noo sheegtay iyaduna ay ku jeceshahay in qofku jecel si lagu helo way adag tahay hay iska sii deynayaan dhila haddii aad videogan maqlayso inta kalena waxaan u dhaafayaa dadweynaha dhageysan doona. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.